وبدعوين كدانتدا دانتدي هوري أصل كأهيد هداه أهيد ما لهانشين نروح ليلاهدو موزيك ما لهانشين موزيكنا ماشو قلبه وحرام نبينا صلى الله عليه وسلم أي عدي حديثك في صحيح البخاري أبو مالك الأشعري أو أبو عامر وحليه النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والعزف ومضى إذا وحا كم من نقون دون ضد حلال دون الزنا هي حريرتا هي خمردا هي معازفتا وآلات اللهو سيد علماء اسكوا فقسين آلات اللهو وحوى يوم وحيالها لقراعو محوها هاي موسيقى وحي لمبدا ومركا العيارة لقراعو وحا ليدهدا معازف ضد بنيستا يا إيمان دون بالنبي صلى الله عليه وسلم ضد بنيستا إيمان دون معناه دم حيث بمعنى وحرام واحد ضد باسي آخر الزمان كبنيسان دونه والنبي كنت أقول صلى الله عليه وسلم ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم دد وحي دقي دونان بور قردين عاده يروح عليهم بصاريحة له حوله هذا أصل إيمانية مركزا وحاو إيمانية روح فقير وباهن مركزا إليهم ارجع إلينا غدا برنا صلى الله عليه فيبيتهم الله إلهي بات تبارك وتعالى هبين بدأ بعذاب كيسئي هلاكو كيني والله بابينية العالم بورتي أكتوض أهين ولا بربورين ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة قيب يجا كم إذا أما كوكلنا الله وحو أبدل يا دايرو يضوفارو أيو إلهي كدقيا حديث البخاري وحصوصر من حبان الطبراني وأنا حديث صحيحة وحا روايات حديث كلو وحا جرت بدن ومعناها الماميسة ويقولون كهالليا آلات كان لطمو موسيقى وحي لمده حديث تقار كميدا وحي تلماميان sababta keentay in la bedelo oo dadka iyaga doofaaro iyo loo bedelo daanyeero sababtu inay tahay dumarka heesa ama dhaanteeya ama muxuu ahaayay ku luqeeya yani waxa weeye waxaan la yiraahdo waxa baabka ku yimaado biittikhadihim alqaynat wa shurbihim alkhamr yani waxa weeye khamrada cabitaankeeda iyo dumarka noocaas samaysigooda nabiga sallallahu alayhi wasallam حديث كلا جرى أنس بن مالك ونقول معناها تلمام النبي صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة لبط وق الدنيا آخرة ولعنتين مزمار عند النعمة ورنة عند مصيبة دربان لقراعو مركي برواق الله يستو عيارها يمحوها دربان ندى موسيقى مركل الذين يبرواق دي النبض الله يستو لقراعو ورنة عند مصيبة هي دوق هي قيلدي برورته markay musiibadu dhacdo labada sawd waa mal'uunaan bu nabiga sallallahu alayhi wasallam hadithka bazaari geerkii waa soo saaray lafdi kalu ku yimid ama wuxuu ku yimid riwaayad kale xaakim iyo bayhaqi ibn shaybi soo saareen oo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa la iga reebay oohinta iyo baroorta ha oohinta caadiga la iga reebin markay musiibadu dhacdo inuu ruuxu ilmeeyo حال يقرب النبي صلى الله عليه وسلم عن صوتين أحمقين فاجرين لبض وق أو دق معه أو فاجر لبض بفاجرهين وطريقة كبحسيهين وخلديهين صوت عند نعمة مركز برواقي سنتهي رواقع ومحوي هاي لهو واللعب ومزامير الشيطان تربانك شيطانك وموسيقى إيوه عيارتها حلي قال الله سمعيه برواقع ده وحال سميها انت بدن markay barwaaqo jirto laana asalkeedii saas u ahaa markii ay jir abaara iyo dhibaatooyin ay jiraan dadku way kala cararaan markay barwaaqo timaada la isla soo dagaal isu yimaada markaas la dhaanteen jiray haddana dad ciyaaraha dad aragto waa maray barwaaqaysan yihiin waa mar la ladan yahay la nicmaysan yahay nabad lagu dhaanteeyo la hayo nabad lagu heesa la hayo muusiga la ciyaaro لكن مركي النعمة ماشى كبحض مصيبة ما ذكر عربا كده سوما نعمتي إلهي اللي الربعين لقى الشكريو أيا الشكر جيد وحلقوا بدلي روقا إيه قيلدا ملعونك
nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu wuxuu tilmaamayaa xadiistaa ku sheegaya muusigu meeluu galaba inuu xaaraan yahay culimada badankoodna sidaasay qabaan oo ay ka mid yihiin afarta a'imada ah asxaabul madaahibka imaam abu xaniifa maalik shaafici axmed ibn xambal iyo keyrkood muusigu meeluu galaba waa xaaraan ayib taa waa mid oo waa dhibka koowaad ee ciyaarta ku jira oo ah muusiga la socda labaad ama yani shayga labaad ee xaaraanta ah waa isjijabinta iyo iswaraariga iyo wiilasha iyo gabdhuhu ay samaynayaan raggana looma ogola dumarkana looma ogola hadday dumar tahayna ka wasii daran xataa waxa ay ku dhawaaqayaan dadku hadduu yahay wax macno ahaan saxsan yahay laakiin isjijabinta jidhkoo la jijabiyo iyo jidhkoo la laalaabo iyo muxuu ahay daaniska waxa la yidhaahdo jidhkoo la ruxo si ahaantiisu xaaraan u yahay waxaa jiray xadiid bayhaqi iyo bukhaari uu soo bayhaqina soo saaray bukhaarina adab mufradka ku keenay bisanadin xasan caaisha radiyallahu tacaala canhuma gabdha ay eedda u tahay ayaa la guday markii la guday baa waxoogaa way yara xanuunsadeen marka caaisha waxaa lagu yidhi yaa umma almu'miniin alaa nadcuu lahunna man yulhiihinna maan ugu yeedhno cid gabdhaha waxoogaa maaweelisa si waxoogaa xanuunkan haye iyo waxoogaa wakhtiga loo dhaafiyo markaasay tidhi bala ugu yeedha bay tidhi waxoogaa cid maaweelisaba haddii loo heli karo waa gabdho yaryar oo markaa la guday waa fa arsalat ilaa fulaan almughani nin waxaa jira markay heesi jirayoo durbaan iyo waaga lama tubi jirin laakiin midhuhuu tirin jiray waa ku sawdayn jiray oo ku codayn jiray bilmunaasaba haddii yani hadalka la tirinayahay ee nadmiga ee tixda hadduusan ka muusig la soconin macnihiisuna uusan macno xaaraama ahayn sawdaynta lagu sawdeeyo codaynta lagu codeeyaa dhib mala markaa yani waxa weeye shicirka nebigu markuu ka hadlayay gabayga waa wax la wixii nadmi oo dhan nebigu wuxuu yidhi sal alla alay slam waa hadal oo kale waay kiisa wanaagsan ee macno wanaagsan xambaarsanna waa wanaagsan yahay ka macnaha xun xambaarsanna waa xun yahay buu nebigu sal alla alay slam sida hadalka caadiga oo kale waay marka waxa weeye nin baa loogu yeedhay dadkii wax qaadi jiray ka mida wuu yimid marka ninkii gabdhihii yareeraa isagoo maaweelinaya ayaa caaisha soo martay markaas waxay aragtay isagoo oo sawdayntii iyo codayntii ku daraya madaxa ruxaya madaxa saa ku hay madaxiisuna wuu timo badnaan jiray nin timo badan oo timuhu raaracaan buu ahaa marka madaxuu ruxayaa timihiina waa la ruxmayaan gabdhihii yaryaraana wuu maaweelinaya caaisha soo martay markaasaa waxay ku tidhi uffin shaytaanun akhrijuuhu bay tiri uf baa la yidhi bay tiri waa shaytaane bixiya bay tiri hawshii loo keenay gabdhaha yarka inuu maaweeliyo sooma ahayn muxuu ku daray ya isruxruxid iyo madax ruxid iyo hawlo kaluu keenay soo maa caaisha waxay tihi waa shaydaane kan meesha ka saara marka raqsiga iyo isruxiddu si ahaantiisa markii ciyaar noqoto si ahaantiisa ayuusan u fiicnayn waa mukhalafo dhan sideeda marka midda labaad weeye dadku markay ajnabi kale yihiin oo wiilal iyo gabdho ay yihiin oo haddana ay isruxahayaan mafaatintii jidhkooda ayaa isu muuqanayo wabitaali waxay noqonaysaa wasiilo ka mida wasaa'isha fitnada iyo aafada iyo dhibaatada faafiso ka mid noqonaya dhibaatooyinka ku jira waxaa ka mida ishtimaaluha calaa kashfi alcawraat gaar ahaan dumarka iyo hablaha dhaantada tumayaay way qaawan yihiin dhar waxay qabaan loo bixiyey waa dharkii hidaha dharka hidaha ah waa dharkay soomaalidu xidhan jirtay ama dharyaryaha ugu wacnaato oo wagaa dharba lama haysaninba ragguna qeyd iyo go' bay qabeen go' tunka la saartay qeyd hoosta laga xidho gabdhuhuna intaas haba dhar u ahaa ama tabartiiyo dharyaryaha u geyso
ama dhaqanka diiniyadoo iska yaraaba ha u geeyo oo gabdhuhu jidhkoodu waa iska qaqaawanaa qaybahan koriyo waa iska qaawanaa intay asturi jireen waa intan muxuu ahay naasaha iyo intan hoosii bay asturi jireen laakiin gacmahooda iska qaawanaa luqunta iska qaawan marka timaha way iska qaawanayeen marka dhaqankii nooca iyo labiskii nooca ahaa baa loo hiloobay oo waxa la yidhi hidiya dhaqan baynu lahaan jirnay gabdhihi dumarka loo xiriyo hidiya dhaqankii war hidiya dhaqan jaahiliya dib aan ugu celinine diin baa timidoo dadku diintoodii bay garteen oo xijaab bay qaateen oo amarkii ilaahay bay qaateen inaad jaahiliyad dib ugu celisaan inaad jaahiliyad dib ugu celisaan oo hidiya dhaqan aabayaashiin iyo ayeeyooyinkii baa lahaan jiray oo hadday lahaan jireen way qaldanaayeen maxaa naga noo geeyey waaba laga soo tago dhar baa la helay adduunka wax isu furmay waxaasaa dadka waxa looga dhigayaa marka wax khatar ah oo halis ah oo muxuu ahay lagu maaweelinay culimadu waxay isku waafaqsan yihiin nusuusta quraanka iyo sunnadana laga qaadan haweenta muslimadda marba haday qaan gaadho cawradeedu waa jirkeedo dhan waxa laga muransan yahay wax weeyaan wajiga iyo labada kaf ma banayn kartaa mise ma banayn karto jirka intiisa kale inay cawra tahay oo inay asturta ay laazim tahay quraankuna wuu ku tusay sunnaduna way ku tustay culimaduna way isku waafaqsan marka laga hadlayo cawratul mara saas daraadeed baa fiqigi shaafiiciga wahabiya keenta sidaan u dhigay fiqigi shaafiiciga ay wadaadadu inoo akhrin jireen muxuu ahaay guryaheena yaal meesha ugu horeysa safiinaha iyo shujaaca halkaas ay ka soo bilaabaan cawratul mar'ati jamii'u badaniha illa alwajh wal kaffayn soo saas ma dumarka cawradoodu waa jirkoo dhan wajiga iyo kafaynka mooye soo saa kuma ol yaa keenay marka war wadaadadii cusbaaba dumarkii mara saaray bay kulay warmay ilaahay baa halka dhigay cawrada oo la baneeyo gaar ahaan dumarka cawradooda oo la baneeyo fitne ka weyn oo bulshada ku timaadaay ma jirto fitanka ugu weyn oo bulshooyinka qabsada waa in cawraadka la baneeyo shaytaanal aabaheen iyo hooyadeen xawaa iyo aabaheen aadam alayhi salaam markii uu geedka cunsiiyay wixii ugu horeeyay uu rabay inuu ka gaadho waxay ahayd inuu cawradooda baneeyo ilaahay quraanku inoo sheegay fawaswasa lahum ash-shaytaanu liyubdiya lahumā mā wuriya canhumā min saw'aatihimā shaytaan baa waswaasiya xaawiya aadam si uu wixii qarsoonaa iyo cawradoodii u muujiyo saas daraadeed baa rabbigan tabaaraka wa tacaala inoo digo wuxuu yidhi yaa banii aadama laa yaftinannakum ash-shaytaanu kamaa akhraja abawaykum min aljannati yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw'aatihimaa war caruurtii aadam iyo xaawa dhaleenow shaytaan yuusan idin fitnaynin dharka yuusan idinka dhigin sidii aabihiin iyo hooyadiin intuu dharka uga dhigay jannadana uu ka soo saaray idinkana yuusan idin yeelin islaaliya ilaahay baa inoo digay tabaaraka wa tacaala ujeedada ugu weyn marka ibliis uu leeyahay waxa weeye inuu dumarka dharka ka dhigo ragga qaawiyo dadkii marka waxa weeyaan dhalinyaradii iyo dadkii isku fitneeyo tii iyadahayd baa marka lagu dhacay dabinkiisa lagu dhacay gabadha muslimadda ah inay asturan tahay quraanka ilaahay inoo sheegay ya ayuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dayn dumarka mu'minaadka ah nabiga lagu yiri sallallahu alayhi wasallam xaasaskaaga gabdhahaaga iyo dumarka kale mu'minaadka ah mu'miniinta dumarkooda u sheeg marada isku sii daaya jilbaabka waa marada weyn ee ka koreysa maryaha kale taasaa u dhow in la garto oo aan la dhibin waa dumarkii lagu yidhi walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha cawradooda iyo quruxdooda yayna muujinin ilaa wixii iska muuqda mooye dumarkii ilaahay ku yidhi way dumarkaas waa dumarkii alla ku yidhi walaa tabarrajna tabarruj aljaahiliyati aluulaa jaahiliyadii hore ee diin la'aanta ahaa dumarkoodu siday quruxdooda u muujin jireen oo kale jidhkiina quruxdiisa ha muujinina astura dumarkii ilaahay ku yidhi waaye dumarkaad arkaysaanee ragga hor taaganee isruxaya ee qaqaawan
dumarka aan jirkooda asturin oo amarka ilaahay jabiyay oo amarkii rasuulka jabiyay oo bulshada fitnadii inay fitneeyaan daayirtay dhalinyarada darka u dhigtay kuwaasi jannada ilaahay geli maayaan hatta haday salaad iyo soon iyo cibaadaad ku dhintaan nabigu wuxuu inoo sheegay inta ay sameeyeen inay ku filan tahay inay jannada uga qadaan fi sahih muslim waxa ku sugan min hadith abi hurayra nabigu inuu sallallahu alayhi wasallam laba qaybood oo bin aadamka kamida waa ahlu naar mana arkino wali maysan imaanin nabigu sallallahu alayhi wasallam yayihin qawmun ma'ahum siyat كأذناب البقر يضربون بها الناس ضدوتا أولوت وصينت الله أذكلا ضدك كجرع قال الله بعد نوحوي ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ضمر مريقبة هدنا قاون أيقون اللي أحسن ضدك اللحية أما تشيد كودا قيبة كم إذا اللحية رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ماذا حوضا سيدي محوها وحوق القليين أو وينيين أو واحد مداب النبي صلى الله عليه وسلم وجيهين سيدا هاشا كروس كوين كروس كيدو اللي يحسنها وكله يعني عمامضو يا مريو يا كريمو يا وحبي مدح قلينيا ورقاسين مدح التوريا وستايل كي هوري دمركي intaan muxuu ahaay xogaa baraarugan diinada u san dhicin dumarka Soomaalida qaar kamid qaabka saawil labisan jir haddana habraha waaweyn qaar baasaas kuwa inta badan Yurub iyo ka yimaadeen aan diinba gelinba oo meelaha yimid arki tuur weyn oo madaxeedaba ka weyn baad moodi oo saaran baad arki kaasnimatul buqtil maa'ila way nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam sida hasha kurus kale ee kuruskeedu leexsan yahay oo kale iyo madaxoodu u yaala نبي وحور صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة دمر كاسي جنة قلي مايان ولا يجدن ريحها عرفت جنة هلي مايان وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا أرك جنة يا عرفت يدنا وحال لجهلا مركل لو تشيرو السعدال انتا ميل فق مركل سوتشرت أي صحن صحذا يا عرفت جنة ضدكوا أي هلا kuwaas inay janno galaan iska badaaya xataa carafteeda heli maayo u soo dhawaan maayo way macna yeeyihiin dumarka dharka xidhan ee hadana qaawan culimadu waxay leeyihiin dhar aan jirkeeda wada gaadhaynin bay qabtaa jirkii qaar baa banaan wayna labisan tahay wayna qaawan tahay ama ma aha maryaha ay qabto jirkeeda ma asturayaane waa khafiif oo jirkii baa ka muuqda wax mara magac maradiisa labay qabtaa hadana jirkii waa qaawan dumarkaasi nabigu sallallahu alayhi wasallam wali mayna iimaan waysa iimaan doonaan jannada gali maayaan budo carafteedana heli maayaan gabadhan marka qaawanay dhaantaynaysa ee isruxruxaysa aafaysan ee la lugooyay haday sidaa ku dhimatay san toobad keenayso halis ma xadiidka nabiga xagee ka mari marka isqaawinta iyo cawradoo la baneeyo ragga ajaanibta khaasatan hortooda waa kabiira min kabaa'ir dhunuub tanbiyada waaweyn bay kamid tahay mukhalafaadka iyo dhibaatooyinka shariicada khilaafsan ee dhaantada ku jireen kowkata waxa kamida dhibaatooyinka ku jira shariicada khilaafsan al-ikhtilaat bayna al-jinsayn ragga iyo dumarka isku dhex jira شريعتنا وشريعة الطهارة وشريعة النظافة وحيدون يسام مجتمع نظيفة هي قرية نظيفة هي رجل دمر نظيفة ضد ظاهرة مجتمع ظاهر ونظيفة يبلشد يدين تلستا سي الطهارة الله إلاليو أي وحل كلفوجي رجل دمرك حتى جوابها عبادة أو لوجو باهي بدنيه أي لكلفوجي ciido kale marka la isu soo baxo nabiga sallallahu alayhi wasallam dumarka gadaal bay fariisan jireen meelayna xataa nabiga khudbada uu jeedinaya ayna ka maqlaynin garaysa xadiidka saxiixeenka ku yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam markii ciidda la tukado ragga u khudbeeyay dumarku khudbadii maysan maqlin xaggay joogan markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam intuu timid buu iyagiina khudba kale u jeediyay meesha ugu tagay masaajidka oo kale markay dumarku ku tukanayaan waa kii nabiga sallallahu alayhi wasallam gadaal mariyay ee waliba hadana yiri ragga
markay isla tukanayaan rag iyo dumarku safka ragga waxaa ugu khayr badan ka u horeeya safka dumarkana waxaa ugu khayr badan ka u dambeeya waa goormo waa markay wada tukanayaan maxaa loo yiri laana safkooda u dambeeya raggii buu ka fog yahay ragga u horeeya safkooda u horeeyana dumarkii buu ka fog yahay labada jinsi markastoy kala fogaadaan waxaa ku jirta dhowrsoonaanta iyo nadaafada iyo tahaarada bulshada ku jirta haddii ay isdhex galaan oo istiraxaan oo xawaajista iyo kala ilaashanaantu meesha ka baxdo waa meesha marka fasaadku ka bilowdo waana mid shariicadu ka degayso markuu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء حديث صحيحان كي من حديث أسامة بن زيد نبي محمد صلى الله عليه وسلم قدا شيء كمتجن فتنة رجع وقدر انضمر كابو النبي صلى الله عليه وسلم فتنة حوله كرسي يعني وحكستو رجع كوي ما دو فتنة ده وقدرني وفتنة ده ضمر كجت ما دو النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء الدنيا اسكتشرا ضمرنا اسكتشرا فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فتنة دي أجوه الرسول بني إسرائيل كل عضي ضمر كيكب الله بتبني النبي صلى الله عليه وسلم هذه مركز ضمر كي لا أستوري واي ولا حجابي واي ولا إلالين واي ويجي يرد الرجل لك إلالين وايو فهالكاس يكبل لابتها في النكا وين ما جرت اساس النبي تلمامه صلى الله عليه وسلم sidaas daraadeed wiilashan iyo dhalinyaradan isku dhex jira ee isku qasan ee hadana qaaqaawayn dumarkii ee muxuu ahay leesdhex mulaaxayo waa mukhalafa sharciyo waa wax shariicada aad uga soo horjeeda dad muslima oo ilaahay rumaysan oo rasuulkiisa rumaysan oo quraanka rumaysanna wax ay yani wax weeye ku dhiiradaan meehe waa wixii la iska ilaalin lahaa xadiidka dambana muslim baa soo saaray waxa kamida dhibaatooyinka ku jira dhaantada oo shariicada ay ku khilaafsan tahay ikhda'u alqawl min an-nisaa hadalka dabacsan ee dumarka hadalka asalahan dumarka ay rag la hadlayaan ama danahooda ku gudanayaan asalahan sida saxiixa ah hadalka dumarku cawra ma aha inay adeegato rag la hadasho oo danaheeda qabsato oo dukaanka ka adeegato isbitaalka ka adeegato ay hadasho oo hadalkeeda la maqlay asalahan cawra ma ala saxiix laakiin hadalka inay jijibiso oo jilciso oo dabciso oo uu noqdo hadal fitna abuuraya ama fitna sabab u noqon karaya ama shahwada kicinaya bil ijmaac hadalka noocaas waa xaraam hadalkaas marka waa hadal fitna abuuraya waa hadal qariizadi iyo dareenkii kicinaya markaas oo kale marka waa marka ilaahay leeyahay tabaaraka wa taala fala taqda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad hadalka hadabcinina oo hadaa dabcisaan midkii qalbiga ka jirnaa buu damac galaya adiga waraabo gaajeysan hadaad hilib ku horwado muxuu sameeynaa soo haliili maayo nin qalbigaba ka jiran oo sakaraad ah hadaad intaad aduguna hadalka jajabisa aad waan ku jeclahay naf baa i haysaay waa ku baadi goobahayay xageed gashay la yaa sariir kula seexday maantana aad ku hayso aadna gabadh tahay jirka aguna qaawaye soo fidna ma fala taqda'na bil qawl الله هذا الكاوح وجهدنا يا حاسسك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما عيد كظهر بدن باجر ما عيد كإلى شريط باجر ودمرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمهاتنا أيها الكل فلا تخضعنا بالقول هذا الكهد بعننا فيطمع الذي في قلبه مرض نينك قلبك كتشر الشهوة كتشر تامرك الدمع قليها سمارت وقلنا قولا معروفا هذا الوناكسن كهل وأن تجبين يتشلعين يدعسن الله مركا إيضا وحرام بل ننتظر ما بقى صح ضبع هذا قبر كله قيس ليلين ولكن ميادة ننتظر الركلي صوت محيان وحنا ننتظر الله يقال
ma jirto waa in gabadh luuqayso u jawaabto oo muxuu ahay ka daba qaado oo la helo waay oo hadalka iyada lafteedu muxuu ahay soo jiidata ragga soo jiidata ila helo waay saasayba ku arkaanu sixatiha way ka mid tahay si kale ku asaabayso sis daradeed muharramaadka ay xambaarsan tahay bay ku jirtaa waxa kamida muharramaadka ay dhaantadu xambaarsan tahay akhlaaqdii iyo qiyamkii bulshada ayay baabi'inaysaa gaar ahaan akhlaaqda way sii kala muhiimsan tahay iyadoo wada muhiimsan nabigeena sallallahu alayhi wasallam loo soo saaray inuu akhlaaqda dhameystiro haddana way sii kala muhiimsan tahay kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah xishoodka inuu ruuxu ilaahina ka xishoodo adoomadana ka xishoodo qiyamka bulshadu ay leedahay waa bulsha markay akhlaaqda weydo oo xishoodka weydo oo tahaarada weydo bulshadaasi waa ku dhamaatay inama al-umamu ummadii intay jirto waa un akhlaaq khaasatan bulshada muslimka markay akhlaaqdu lunto bulshadaasi ma istaahisho inay sii jirto waa inay baaba'do waa sunna ilaahi waa gaar ahaan waxaan nidhi khuluqul hayaa oo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam uu ku tilmaamay al-hayaa min al-iimaan حديث علماء قاركود طرق دي بمجموع طرق يكون تحسيننا يا نوح النبي يقول لكل دين خلق وخلق هذا الدين الحياة يعني الدين والبأخلاق بيلاده أخلاق ذا إسلام كي دين الإسلام كله وحشوتك حديث أبو مسعود البدري نواكيها في صحيح البخاري النبي يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا لدى مرتدأ النبي نمدي هوري أما النبوة هوري لقسو قاري وحا كمدا هذا الحشون إن الوحا دون تصميه سريكتي حشون وحا كردم بعض الرقي الدمر با وحول بكفي لو يمرك وحا بياراتي كريبتون مجرو marka xishood daradaasi iyo akhlaaqda dhimanaysaay waxay ku iimaanaysaa faaxishadan ay ku dhawaaqayaan iyo rag iyo dumarkan isku dhex jira ee qaabkan ka tahay khuluq akhlaaqdi iyo dhaqan wanaagii iyo hidihi fiicnaa bulshadu lahayd ayaa la baabi'inaya ama meesha ku baaba'aysa waxa kamid ah dantadu xambaarsan tahay al-jahru bis-suu wa i'laan al-munkaraat xumaantii oo lala baxay iyo wixii shariicadu khilaafsanayd oo yaani wax weeyaan amaama al-mala dadka hortiisa la sameeyo la jilay allana quraanka kariimka wuxuu ku leeyahay la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim xumaantu iyo dambiyadu markay soo yihiin waxay dhibaan oo kaliyeeta ruuxa sameeynaya laakiin dambiga markii banaanka la soo dhigto oo banaanka loola soo baxo oo warbaahintii soo galo telefishinadii social media dadka dhaxooda ku faafo oo wada daawado oo la arko markuu saa u faafo kale bulshada ku imtixaanan markaas ruuxii sameeyay kaliya ku ekaan maaye dhibku markaasi dadka waa wada gaaraya sidaas daradeed baa nabigeenu wuxuu leeyahay kullu ummati mu'aafa jaahirin ummadaydo dhan waa afis mu'aafa waa illa kuwa dambiyada muujista mooyee yaani waxa weey iyadoo dambi ay wada tahay haddana dambiga inaad asturto oo si qarsoodiyo ku sameeyay way ka fudud tahay tan waxay la dheer tahay wax la istihtaark yaani wax weeyaan sirriig la'aan iyo inaadan waxba u aabayeelinba way ka daran tahay marka way ka daran tahay waxyaalaha la yaab kale waxa kamid oo ay soo kordhiyay hada soo maalinba waxbay ku kordhiyaan maalinba waxbay ku soo daraan maalinba qaab baa lagu daraa midba midda ka dambaysa ka sii daran washiga iyo xumaanta ka muuqata iyo dhaqan xumada iyo waxa ka socday aad yaabaysa marka waagii hore waxa la jirayba muxuu ahay waxaan la yiraahdo dharkan ay hidiyaha dhaqanka dhahanay u xirxiraan gabdhaha dhaantaynay madaxana way u duubi jireen luqunta iyo gacmaha ay iska bambanaadeen iyo intan marka qaar hadda waxayba keeneenba ilaahay amarkii gabdho timuhu u tidcan yihiin oo timuhu baqaawayiin
waxay ka wadaan mutaqana dumarkii hore oo dhaadeen jiray qaar baa timuhu isaga tidcanaan jiray oo iska banaanaan jiray marka waa gabadh muslimada oo timihii iyo luqunti iyo wixii la soo jidku meesha ugu quruxsanaa oo dhan intay rag loo soo istaagtay waatantir shawaq waa baqaawanahay marka maalinba waxba la soo wadaa maalinka dambana waxa la doonayaa waxaan ka daata in loo yeelo soo jiidasho loo yeelo in la suugeeyaa la doonayaa oo maalinba maraq cusub iyo yani waxa way muxuu ahay milix cusub iyo hawl cusub loo yeelo wixii hore waa laga xiisa dhici shaydaankii baa marka maalinba tilaabo la sii qaadahay maalinba meel buu sii wadaa maalinba qayb buu ugu sii daraya waxa kamida dhibaatooyinkeeda waxa kamida idaacatul waqti luminta iyo juhdiga iyo waqtiga lumaya ama han noqoto diyaarinta waxa la qaadayo diyaarintiis waqti buu qaataa kooxdan isla tumaysa in la isu soo ururiyo ishelaan in lagu tababarto qaabka wax loo jilahayo in la diyaariyo tiimamkaasi in la ishelaan oo ruuxu muhiimadiisa la siiyo waqti bay qaadataa fulintu waqti bay qaadataa jamaahiirta iyo dadweynaha mutaabacaynayay waqti bay qaadataa inta waqti ka lumaya waxaas oo waqti inta la ururiyo wax nafci la gelin lahaa ummadda wax badan buu tari lahaa ya beeruu soo saari lahaa wadamuu hormari lahaa ummad buu wax bari lahaa wax weyn baa ka imaan lahaa waqtiga meesha ummadda kaga lumaya ka daawanaya iyo ka samaynaya ka diyaarinaya waqtiguna sidiisaba waa bini aadamku waa waqti waa ummadda kale waxay kaga fiican tahay siday waqtigeeda uga faa'iideysato ummadba waxay ka liidataa oo ka dambaysaa sida ay ummadda kale waxay kaga liidataa luminta waqtigeeda ay ku lumiso waxyaalaha aan nafciga iyo faa'iidada lahayn waxa kamida dhibaatooyinkaasi ee ay leedahay da'yartii iyo dhalinyaradii wiilashii dumarba waxbaran rag iyo dumarba waxbaran lahaa ee mustaqbal dhisla iyaguna mustaqbal yeelan lahaa dadka iyo dalka iyo diintana mustaqbalkeeda wax badan ku biirin lahaa ayaa waxa looga dhigayaa dayasho iyo wax inay raadiyaan oo ay iyaga laftoodu noqdaan oo kale sidaas oo kale noqdaan wax himilo ah oo daayartii lagu barbaariyo ku day gaar ahaan markii dhalinyarada iyo daayartu ay arkaan wiil iska dhalinyaro ama gabadh iska dhalinyaro meelaha taagtaagneedo iska rafaadsanayd oo cilmi meel geeya iyo aqoon meel geysa iyo dadnimo kale meel uu ku gaadho waayay oo maalmo gudahood ama sanad gudihii noqday najmi xidig ya xidig gogol cagaaran loo fidiyo oo garoomada lagu soo dhaweeyo oo xafladaha iyo maharajaanada loogu yeedho oo xoolo kasba oo magac yeesha ya oo la yiraahdo hebel dhaanta la dhahay hebel dhaanto ya miskiin meelaha taagtaagan baa aqoonu meel ku gaadhana ma lahayn karti uu meel ku gaadhana ma lahayn dadnimo kale meel ku gaadhana ma lahayn laakiin waxaanu intuu wuxuuga muxuu ahay ku caanbaxay iyo wuxuuga dhaqaalaana ka sameeyay magacna ka sameeyay waa la bartay waka madaxdii iyo dawladihii baa muxuu ahay goosha u fidanaya dadkii dhalinyaradii markay arkaan yaryarka ahaa dhalinyaradii yaryarka ahaa ee soo koray markay waxa soo kala arkaan ma waxaad ku karaysaa adiga wax weey 12 sano tacliin garaac oo ilaa secondary ka bax 4 sano jaamacad garaac 3 sano master garaac 4 sano dambana PhD garaac miyaad ku kari oo sheekh intaas oo dhimcaan raadinaya soo xoolo ma oo wuxuuga dhaanta ama garaac oo hal sano ku taajiro ku leh ya xoogaa anigu midhaha haddaan isku hagaajiyo waan keeni karaaye gabdhana meelaha waan ka urursan karaa intaan dhaantada galo hadan waxaan aan raadinaya jidka dheer u marayaba sanadii 2 sano lagu helaaye maxaa jidka dheer marinay wataan hadda idin sheegayo markaan marayay kilka aan magaalooyinka marayay ciyaalkii yaryara ee la rabay inay madrasooyinka iyo iskuulada iyo goobaha tacliinta iyo inay wax bartaan ayaa waxa lagu aabiyay hageesa dhaanta dad gaarsiinaysa aafooy marka
dad badan oo da'yartii ah ayaa ku lunsan oo meesha isleh wax ka gaadha muhiimadii ay ahayd in muxuu ahaayay ay nafci jidkii saxsanaana kaga lumay waxa kamida oo waxyaalaha shariicadu ay diiday oo dhaantadu ay xambaarsan tahay waxa kamida zina ku jirta zinadu waa noocyo zinada inaga waxaan u naqaanaa labada xubin ee taranka isgala sooma laakiin shariicadu waxay u taqaanaa zinada taa zina waa la yiraahdaa zinooyin kalena way jiraan zinooyin kale say ku yimaadaan nabigeenu sallallahu alayhi wasallam xadiidka sahih muslim ku yaana min xadiid abi hurayra rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam kutiba ala ibn adam nasiibuhu min az-zina ibn adam ka waxa korkiisa lagu qoray qaybta uu zinada ku leeyahay mudrikun dalika la mahala waana ku dhacaya laga maarmaan markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam fal aynani zinahuma an-nadar labada indhood zinadoodu waa fiirada iyo daawashada wal udunani zinahuma al-istima' labada dhagoodna zinadoodu waa dhageysiga wal lisanu zinahu al-kalam arabkana zinadiisu waa hadalka wal yadu zinaha al-batshu gacantana zinadeedu waa taabashada iyo qabashada wal rijlu zinaha al-khuta lugtana zinadeedu waa socodka wal qalbu yahwa wa yatamanna qalbiguna wuu dooni oo wuu jeclaan ويصدق ذلك الفرج ويكذبه intaasi markay isbiirsadaan oo hawsha soo qabtaan xubinkii odayga ahaa hawshan qaban jiray oo xubinka taranka ah ayaa marka ama rumayn oo fulin ama uu diidiyo uu beeninaya maxaa ka hormaray marka soo zinooyin badan kama hormaray ishii baa ka hormartay gacantii baa ka hormartay afkii carabkii baa ka hormaray waxa ka hormaray lugtii oo loo socday waxaasoo dhan qalbigii baa ka hormaro isaga laftiisa hawshii jeclaaday oo doonay intaas markay zino soo dhacdo tii weyneed markaas ay iimaanaysa Soomaali marka wiil isla dhaantaynaya soo isma daawanayaan bisa indhahay qabanayaan indhahay isku qabanayaan way is daawanayaan way istaabanayaan way isu soo lugayeen waa dhalinyaro oo qalbi shaki ma laha sooma annaga dhihi mayno zinadii weyneyd bay galeen oo ruux muslima inaad tiraahdo zinawdii weyneyd buu galay ma sahlana cadaynkeen baa lagu dhihi maadaa arkaya afar barqaati oo rag ah oo hawshu markay dhacaysay waan malaawaal ahayn oo waan la isdul saarnaa ahayn oo waxba dhaqdhaqaaqay aan ahayn oo labadii xubin baa si dhab isugu jiraan arkay afar saw marqaad kacda keen hadii afartii la waayo saddex kaliya hadii la helo xataa afar hadii mid la waayo saddex la helo saddexdiina waa leedin 8 jeedal baa leedin ku dhufanaa ciidiga iyo sharafka ruuxa muuminka sida loo ilaaliyo taa macnaheedu waxa way gabadhu way qaawan tahay ama yaani dhaantay ku dhex jirtaa ama meel heesay ku jirtaa ama jirkeedu ma asturna macnaheedu ma aha zinadii weyneyd bay gashay ma aha ruuxi qaabkaasi u yiraahdana waxa way waa dambi weyn waa qadaf laakiin tan ka hadlayna waxa way intan ka horeysay muuqata ayay shariicadu waxay ku tilmaantay inay iyaguna zina tahay intan ka horeysay shariicadu sheegtay ayay shariicadu waxay ku sheegtay inay tahay zina waana dunuub kulligeed waana ta quraanku qayb kamid ah tilmaamay marka ilaahay Allah tabaaraka wa taala wala taqrabu zina zinada ha u dhawaanina ha sameeynina lama dhihin soo farqi uma dhaxeeyo ha u dhawaanina macnaheedu maxay ishi laaba وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن غض البصر تابشدي الرجل الدمر كأجانب تكلا خلودي إسلقوني نقشدا وحصل على سودي وحصل محيطة وحين داب شيء وزندي سيسر ودعين بالإلالينيا لا تقربوا هودا ومعنى أساس waxaan keenayo oo dhan ka fogaada waxaan keenayo oo dhan waa kuwan marka xadiidku hadda sheegayo marka waxa kamida
waxyaalaha ay xambaarsantahay waxa kamida ad-diyaasa wa dhahabul ghayra dayuusnimo iyo qiiradii iyo ficiladii oo ummadda ka dhimata ruuxa muslimka ah waa inuu leeyahay ficilo leeyahay waa inuu ka ficiloodo xumaanta ehelkiisa gabdhihiisa xaasaskiisa walaalihii gabdhaha muslimaadka xataa waa inuu ka xanuunsado haddii ficilada la waayo ehelku samaynayo raali laga noqdo ama aynan dhibba kugu hayninba nabigu wuxuu ku tilmaamay inay tahay nooc dayuuthnimo ah waay dayuuthnimada luqada carabiga ad-dayuuth iyo dayuuska Soomaalidu uu kala duwan yahay Soomaalidu dayuus waxay u taqaanaa waxay u taqaanaa kuwan dabada isaga tag Soomaa dayuus kaasaan dhahnaa Soomaa marka dayuuthkaas xadiisku ka hadlaya kama dayuuth fi luqa al-arabiyya wax la yiraahdaa nabiga qeexay waa ninka ehelkiisa iyo reelkiisa xumaanta raaliga uga ah waxba ka qabin gabdhihiisa iyo dumarkiisa iyo walaalihii iyo dumarka ehelka waxay inay sameeyaan xumaanta sameeyaan ama rag u yimaadaan oo iskala baashaalaan waxba kama qabo ninkaasoo nabigu ku tilmaamay dayuuth inuu yahay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waxa la doonayaa inuu ruuxu qeyra leeyahay maxaarimta inuu ka qeyroodo ehelkiisa inuu qeyroodo ummadda dumarka iyo gabdhahooda inuu xumaanta kala qeyroodo taasaa la doonayaa xadiidka abi hurayra waa kii ahaa sacd ibn ubaada waa ka warinayay wuxuu yidhi yaa rasuul allah sacd baa dhahaya yaa rasuul allah law wajadtu maca ahli rajulan lam amassahu xataa aatiyahu biarbacati shuhadaa rasuulka ilaahay haddaan xaaskaygii nin ugu imaado ninkaa taaban maayo miyaa ilaa 4 markhaati aan keeno ma 4 markhaati baan raadiyaa iyadoo islaantaydii laga shaqaysanayo ayuu yidhi 4 markhaati raadi baad leedahay markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam nacam ha 4 markhaati raadi markaasuu yidhi kalla والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك ما يبي رسولك إلهي بان كل نارتي سيف بان كل دق الهبل ولي بالسيف تدي عدنا عقوم رفتانه وأكو كلا شر الهبل حيث مرخاتي الرادي فرير كي يجيب أبلغ دحجراه ورجع رسولك صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم وقاس كينو هذا الكوليه دقيست من النبي صلى الله عليه وسلم إنه لغيور وأنا المصير بدن وقير بدن وأنا أغير منه السجن أنا كقير بدن والله أغير مني أنا إلهي بقى غير بدن سمعت يعني وحوي بالشد وإني غير هذا غير معنى وحوي وإني كفع الله توي كم صيرته حمانته قبلها يضمرك يمحوها إهلدودو أي جليان وإني كحماته كدبنا وحي كقبان كرتو inay ka qabato way macna xadiidku waa muttafaq alayhi laakiin lafdiga hadda aan akhrinay muslim baa iskale xadiidka kale nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam saddex jannada ma galan waligood ilaahayna ma fiiriyo maalinta qiyaamada al-aaqu liwalidayhi ruuxa labadiisa wal aaqa ku ah wal mar'atu al-mutarajjila al-mutashabbiha bir-rijal haweenayda ragga isu ekaysiisa ee ragga isku shabahda iyo wadayuuth iyo ninka dayuuthka waxay dayuuthku yaa waay rasuulka ilaahay رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي الذي لا يبالي من دخل على أهله وأن كان ضنك لهين يدمرك رواية قال وحي أهد الذي يقر في أهله الخبث أما خبثة حمانة أنتو أهل كيسية كوارك قبليه سيو سيدا سجد أيون ضنك لهين كاسو يا النبي صلى الله عليه وسلم مركا قبلها سأدر كيساني ويلش وعيارتك كتمان أيان waxaa jooga walaalood baa jooga aabayaashood baa jooga adeeradood baa jooga xigtadoodii baa joogta bal waxaa laga yaabaa inay meesha fadhiyaan oo iyaga laftooda ayba ku qoslayaan ama ay daawanayaan meelaha ka daawanayaan war waa tii qaraabada heblaadahay war inay heblaada soo inaad ka xubaato maahay bulshada markay sidaa ku marto waxani ay sida marka ula qabsadaan bulshada waxa ka dhimanaysa marka qiiradii baa ka dhimanaysa Soomaalidu waxay yiraahdaan doofaar baa maxay loo cadaabay ficil la'aan loo cadaabay dhan Soomaalidu ficiladu marna way fiican tahay oo marka shariicada waafaqsan tahay maxaarimta lagu ilaaliyo
marna way khaldantahay waa marka shariicada khilaafsan tahay naam gabagabadii baan joognaa waxa kamida dhibaatooyinka ay keento ciyaarahan dhaantada iyo heesaha iyo munkaraadkan banaanka loola soo baxo dhibaatooyinka ay keenaan waxa kamida bulshada ku faafa masaa'ibtu inay bulshada ku dhacdo gaar ahaan markii inta banaanka loola soo baxo laga aamuso oo bulshadii ay noqoto mid sameynaya mid daawanaya iyo mid ka aamusan markaasi musiibada timaade xaq Ilaahay ka timaadaysa bulshada xadiidkii Qays ibn Abi Haazim Abu Bakr as-Siddiq baa wuxuu akhriyay aayadan ya ayyuhalladhina aamanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaytum mu'miniintiyo naftiina hadaad ka adkaataan wixii lumadan kama lihidin idin ma dhibayo marba hadaad ugu xanuunto aayadaas akhrinaysaan buu markaas wuxuu yiri inna an-nasa yad'una hadhihi al-ayata ghayra mawdi'iha يضعون هذه الآية على غير موضعها ذاتكو آيات ميشهدي ميلان هين بيدغيان وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنغنا وحن مغلي رسول الله دحيه إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يديه أو قال المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقابه بالشدو منكر كي حمانته مركي أرقته وبناك أصبح وأي وحكا قبن ويدو كهل ويدو إنكري ويدو عقوبة تماد إلهي وكسما ووذا قارسية منكرات كان فافصان وبلغ قبنين يلقى آموسين إيميل والبا مركي وحوقا النبض يبرواق الله بسي سيادة هذا الصومالي مركي أضو فيرس واقي علاضو أي جيرينو لباتوين كو جيرينو ليسلين هايو يا دلن يرو محوقا هاي هبينكي ميلها تمتو حيابها تغو من الأركي جيرين سوما نبدي با قريمتي لك العر وحوغا markii nabad la helo oo barwaaqo la helo munkaraadka soo bax munkaraadka inkir waayo musiiba caama ka dhalata waana sunna ilaahi waay cudurra dhalan waxa iimaanaya abaaro waxa iimaanaya fatahaado waxa iimaanaya colaad waxa iimaanaya dhibaatooyin waaweyn oo bulshada wada gaadha iimaanaya maxay ku iimaanayaan waxay ku iimaanayaan munkaraadkan qaarna sameynayaan qaarna daawanayaan qaarna ka aamusan yihiin sidaas daraadeed waa laga maarmaan in hawsha iyada ay wixii la mid ah bulshadu ay tiraahdo maya wardaaya war joojiya war inaga daayay waxa kamida waxyaalaha muxuu ahaay ku jira dhaantada ku jira been iska cad baa ku jirta waxan ay waa beentuna ilaahay dunuubta laga galay uga weyn waliba waa been yani waxa weeye loo ekeysiyay sida runta kale looguna luuqeeyay qaab dadku soo jeedanaysa inay beenta waxaad ku garanaysaa ninkan laaqinaya sida orgiga kale muxuu ahaay ku hayay waan ku raadiyay intaasaan ku daba socday muxuu ahaay wadnaha ibelbelay xalay ma seexanin sakaraad baan ahay isbitaal baa la dhigay adaan ku baadi goobahayay marumba يا ما برتيبا وبيناله وحي الله يجرو قال وننا ما بلبلهيو gabadhana waxba kama rabo uma socdo waligi muusan arkin xataa guur kama rabo laakiin meesha waxay la gashay un hawsha la gashay Soomaaliya sidaas daraadeed gabay waa ka Ilaahay ku sheegay washu'araa'u yattabi'uhumul ghaawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun وأنهم يقولون ما لا يفعلون شعر كوحل هذا هذا الكستو أو تحة أو طحن شعر بالينا هذا دون طعم نوع محو هاي قبي أقول له قه أما هيس أقول له قه أما برامبر أقول له قه أما محو دانتا أقول له قه هذه قصاد تقول لكن هذا الكستو أو منظم شعر بالنا ساس دراد كل يوم يسوي ذا قالين الشعراء يتبعهم الغاوون ضدك أنت اللونسان بهرت الرعدة ضد بعدي يسون اللونسان بالرعدة ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون صماذا أركن تقول بين يكون ورسينهين ميلو البوقلية ميل كسوك الله وح كسوك الله ورسين وأنهم يقولون ما لا يفعلون وحين السمين إننا ويكون الله وحن أوليه وحبان كلا طورة هي وحبان سمين عركان كسو دقيا أوليه وبيان وحبان سمينك يعني وحين سمين إننا ويكون الله عليه تبارك وتعالى ابن عباس وحليه في كل لغو يخوضون marka wax weeye beentan iyo kadibkan iyo waxan la daldalahayo
وهذا محو أهاي فحش القول ككتير وكبسي درنو غزل كان يعيش على ضلضل شهوات هذا نكحين إنسان صامرني هي بنت إسوتاي أيضا وحي كميت هاي محرماتك شريعة هذا خلاف سن كجرة كميت جبدي وحيالها كجرة وحا كمذا إن يجون أي كم مشغولان كان أي كم مشغوليان إلهي وتشدد وأبوري يواجباتك دينته دائرتنا أي اللوميان إلهي القرآن الكريم كواكينا وشيء ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ضدك وحكم ذا قار إبسدا أما قاتا وحيالها وقت الله يسكر فيه ما ويلد الله سميه حيالها ما ويلد الله سميه هي سيبا سوق ليا دانتي سوق ليا حيالها كلمة ما ويلد الله سوق وحاسي قادنيا إبسنيا لو وريجيا ما حي أسمينا ليضل عن سبيل الله سيجيتك إلهي ذاتك أقل ميان بغير علم الآن ويتخذه هزوا إلى آياتك سنة تشيس بكرجنيا أولئك لهم عذاب أليم العذاب إهاني لي عبد الله بن عباس وحليه هاي نزلت في الغناء وأشباهه آية وحي كسوت كتي هي صها يوحي لمد ودان تدو كمت عبد الله بن مسعود وحليه هاي آية وحي كهليس هو الغناء والذي لا إله إلا هو إلهي بان كدارتي آية وحي كساب سنتهي وهي صها صدق قرب سيدا كدارنا يا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه سيدا دراديد أيا وحكستا أو كان مشغولية إلهي وحي وكو أبوري عبادة كان مشغولية أو صلاة كان مشغولية أو برشاد الدين كان مشغولية واللهو الحديث مركا قاركود waxaa soo galaya maharajaanaadka la isugu yimaado dhaantooyinka iyo heesaha iyo la isugu yimaado marmarka qaarkood waqtigii salaada soo galaya bulshada dhan ee meesha ku jirta qaacada ku jirta waxa laga yaabaa hal mid inuu salaad u bixi oo salaadii ku dhaafto المهم waxaan hada sheegnay waxa weeye waxay ka badan tahay 20 mukhalafo oo shariicada khilaafsan ku jira iyo ka badan maadaama intaas oo munkaraad iyo ka badan oo sheegay ay xambaarsan tahay munkaraadkaasi iyo kuwa ka waaweyn dad waxa jira u bareera ama arsaaqdu ka gashay ama shahwadu ay la jiiday ama shaytaanku duufsaday ama naftu ay duufsatay wayna jiri jireen dad noocaas oo kala ayagana waxaan leenahay Allah soo hanuuniyo oo Ilaahay tabaaraka ta'ala munkaraadkan iyo xumaantan ay banaanka ula soo baxeen ummadana kulminayaan Allah tabaaraka ta'ala ha ka hanuuniyo intii ku khaldantay oo dambi ku gashayna Soomaali badankeed waa ku gashay oo waa mid muxuu ahay daawanaya iyo mid muxuu ahay u bogsan iyo mid sameynaya iyo inta inkirsan ee diidan baaba yarba marka ilaahayna tabaaraka ta'ala dunuubteena ha wada dhaafo oo xumaanta ilaahay tabaaraka ta'ala ha inaga ilaaliyo toobada ha waafajiyo innagana waxa inala gudboon ka bulsho ahaan waxa inala gudboon taakiliye meeh munkaraadka soo baxaya ka tagitaanka dadka sameynaya ay ka tagaan waa mas'alo ay baaba'do mas'alo kalena waxa weeye in waxan la ogaaday inuu yahay wax dhibaato leh inta ku fitnaysan in badan oo kamid waxa laga yaabaa in gadaal Ilaahay ka soo hanuuniyo dad fara badan way dhacday in Ilaahay soo hanuuniyay laakiin waxani markii laga aamuso wuxuu noqonayaa munkar caado noqday oo la banaystay oo la xalaashaday buu noqonayaa waana markaas uu ka sii daran yahay marka tawfiiqda Allah ina waafajiyo تعالى حمانت الله inaga ilaaliyo samaanta iyo iimaanka iyo khayrka iyo khadmo wanaagsan Allah inagu dilo ummada muslimka intii lunsan Allah soo hanuuniyo hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi